waxa laga yaabaa in aad in badan ku dadaasho labiskaaga iyo quruxdaada sare ee muuqata, balse aanad sidaas si lamida ugu dadaalin caafimaadkaaga iyo ka warqabkiisa. Taasi waxa ka sii daran in aadan ka warqabin muhiimadda ay leedahay ka warqabka caafimaadka maskaxdu, taasi oo ka mas'uula dhammaan shaqooyinka jirka. Daryeel xumo darteed ayaa laga yaabaa in ay kugu soo boodaan xanuuno aadan filanayn, kuwaasi oo marka dambe dhacda in aad u dhimato ama aad u gasho xaalad adag. Haddaba maanta waxaynu ka hadli doonaa 12 caado oo dhaawac gaarsiiya maskaxdaada, loona baahan yahay in aad ka dheeraato ama ka feejignaato, aadna aad ugu dadaasho ka warqabka iyo ilaalinta caafimaadka maskaxdaada. Ku soo dhawaada. Caadooyinkan waxaa laga yaabaa in aad si maalinle ah u samayso qaarkood, aadna ogeyn in ay dhaawac u geysanayaan maskaxdaada. Waxana ay kala yihiin: 1. Isticmaalka sonkorta badan. Sonkorta badani waxay dhaawac ku keentaa maskaxda bini'aadamka. Marka xaddigii uu jidhka u baahnaa ka badan la qaato, waxay keentaa in jidhka ay ku badato baruurtu. Waxaa laga yaabaa in aad isweydiinayso sidee ayay qaadashada nacnaca badani u saamaysaa maskaxda, balse qaadashada sonkorta xad-dhaafkahi waxay khalkhal gelisaa awoodda jidhka u leeyahay in uu nuugo nafaqada iyo borotiinada. Waxaa laga yaabaa in ay keento nafaqo xumo ka hortagta horumarka maskaxda, waayo jidhka waxaa ka maqan nafaqeeyaal ku filan dhiigga. Sidaasi awgeed, ma awoodo dhiiggu in uu keeno nafaqooyin ku filan maskaxda, taasina waxay joojisaa koriimadeeda. Cunista macmacaanka badani waxay dhaawici kartaa xasuustaada iyo awoodda fikirka. 2. Hurdo la'aan ama hurdo yaraan. Hurdo la'aantu waa dhibaato weyn oo haysata dad badan oo nool casrigan aan ku jirno iyaga oo og muhiimaddeeda. Hurdo la'aantu waxay keentaa arrimo dhowr ah sida niyad-jabka iyo xasuusta oo daciifta. Daraasadihii u dambeeyay ee la sameeyay waxaa la sheegay in hurdo yaraanta iyo hurdo la'aantuba ay hoos u dhigi karaan cabbirka maskaxdaada. Hippocampus waa qaybta maskaxda ee xanuunsata marka aadan hurdo kugu filan helin. Xitaa hal habeen oo aadan seexan hurdo kugu filan ayaa carqaladayn karta awoodda maskaxda si ay u soo celiso macluumaadka cusub. Daraasado dhowr ah oo la sameeyay ayaa iyaguna muujinaya in maskaxdu ay iska nadiifiso wixii sunta ah inta lagu jiro xilliga hurdada. Hurdo la'aantu sidoo kale waxay sababi kartaa dhimashada unugyada maskaxda, kuwaas oo hoos u dhigaya fikirkaaga, wax u dhimaya xasuustaada, u fiirsashadaada, go'aan qaadashadaada, kaana carqaladaynaya waxbarashadaada. 3. Isticmaalka earphone-ka iyo dhawaaqiisa dheer ee muusikada. Haddii aad si joogto ah u dhegaysato muusikada maalin walba, codkooduna aadka u sareeyo, waa in aad joojisaa, sababtoo ah waxay dhaawici maqalkaaga. Ogow, dhagahaagu kaliya ma saameynayaan, balse maskaxdana waa ay saameynayaan. Maqal la'aanta dadka waaweyn waxay ku xiran tahay dhibaato dhanka maskaxda ah, sida luminta ama dhaawacyada gaaray unugyada maskaxda. Marka maskaxdaadu ay tahay in ay samayso dadaal dheeri ah si ay u fahanto hadal qof leeyahay, ma kaydin karto waxa aad maqashay oo dhan. Marka ilaali maqalkaaga adiga oo dhagahaaga ka ilaalinaya wax kasta oo maqalkaaga dhaawac u geysan kara. Headphones.com waxay soo jeedinaysaa in aad wax ku dhagaysato earphone la soo tijaabiyey oo la hubo in aan waxba yeelayn maqalkaaga iyo dhagahaaga, balse inagu ka Soomaalihan wixii jaban uun baynu iibsanaa. Caafimaad iyo tayo midna uma eegno. Ku dadaal caafimaadkaaga iyo tayada waxaad isticmaalayso in aan waxba yeelayn dhagahaaga. 4. Quraac la'aanta. Dad badan oo ku nool daafaha dunida ayaa subaxii quraacan. Dadkaasi ma oga quraac la'aantu waxyeelada baahsan ay u geysanayso maskaxdooda. Jirku wuxuu u baahan yahay nafaqo ku filan kadib markii uu helay hurdo ku fiican. Jirkii oo saafi ah oo u baahan wax uu quuto iyo nafaqo uu ku shaqeeyo qaybihiisa kala duwan, siiba maskaxda ayaa subaxii soo toosa. Daraasad lagu sameeyay 80,000 oo qof muddo 15 sano ah waddanka Japan ayaa daha ka qaaday in dadkii inta badan aan quraacan jirin ay qaadi karaan xanuunada stroke iyo dhiigkar. Daraasad kale ayaa iyana muujisay in carruurta subax kasta quraacda ay aad uga fiican yihiin dhanka waxbarashada kuwa aan soo quraacan. Quraacda oo laga boodo waxay hoos u dhigtaa heerka glucose-ka dhiigga, taasi oo si xun u saamaysa shaqada maskaxda. Marka xasuusnow ama ku dadaal in aad subax kasta quraacato inta aadan gurigaaga ka bixin, siiba xilliga hore. 5. Cunista cunto badan
cunista cunto badan maalin kasta waxay keentaa miisaankaaga oo saa'id u kordha, taasina waxay kordhisaa fursadaha ay naftaadu ugu soo biiri karaan cudurro halis geliya caafimaadkaaga. iyana waxaa jirta hal xaqiiqo oo laga yaabay in aadan ka warqabin, taasoo ah inay dhaawac u geystaan maskaxdaada. daraasad lagu daawacay joornaalka Neurology sanadkii 2012 ayaa lagu sheegay in la baaray 6,000 oo qof, da'dooduna ay celcelis ahaan ahayd 50 jir. ka qaybgalayaasha ayaa la baaray 10 sano kadib. kuwii naaxay 10 sano 22% waxa hoos u dhacay howlahoodii garashada maskaxda marka la barbardhigo kuwii caatada ahaa ama sidooda ahaa. seexashada jeegada oksijiintu waa muhiim marka loo eegayo shaqada maskaxda. hadba hawo yar oo aad neefsataa waxa ay sii xumaynaysaa shaqada maskaxdaada. xaalad aad ku neefsato in ka yar 20.95% oksijiina waa marka aad ku seexato bustee. marka aad sidan u jiifsato waxa fudud qaadashada carbon oxide, taasi oo waxyeelaynaysa unugyada maskaxdaada. 7. shaqada badan. waxaa laga yaabaa in aad maqasho in waxqabadka badan uu saameyn taban ku leeyahay maskaxdaada. waxaa soo baxday in saameyntani ay maskaxda ka dhigto mid waxtar yar. dhakhaatiirta neerfaha MIT iyo mid ka mid ah khubarada adduunka ayaa sheegay in marka ay timaado dareenka kala qaybsanaanta in maskaxdaadu aanay si fiican ugu xidhnayn howlo badan marka ay dadku u malaynayaan in ay howlo badan hal mar isku qabanayaan, waxaana si degdeg ah hal howl ugu bedelayaan markaba howl kale. caadada shaqada badani waxay kordhisaa hormoonada walaaca ee cholesterol, sidoo kale dagaalka ama hormoonada duulimaadka ee adrenaline, kaasi oo kicin kara maskaxdaada keeni karana fikir qalafsan. cilmi baarayaasha jaamacadda Stanford waxay ogaadeen in dadka meelo badan ka hela macluumaadka dhijitaalka ay si joogto ah u leeyihiin dhibaatooyin muuqda oo ah dib u soo celinta macluumaadka iyo u fiirsashadooda oo yar marka la barbardhigo dadka dhameeya ama qabta hal hawl oo kaliya. 8. biyo aan kugu filnayn oo aad cabto. jirku waxa uu ka kooban yahay 70% waa biyo, sidaas darteed waa muhiim hawl kasta oo jirku qabanayo oo ay ku jirto shaqada maskaxdu. marka maskaxdaadu ay ku shaqaynayso kayd buuxa oo biyo ah, waxaad awood u leedahay inaad si dhaqso ah u fikirto, diiradda aad wax saarto, aad u hufnaato, hal abuurnimona aad la timaado. biyuhu waxay muhiim u yihiin gaarsiinta nafaqooyinka maskaxda iyo baabi'inta sunta. marka si maskaxdaadu si buuxda u fuuq baxdo, isweydaarsiga nafaqeeyaasha iyo sunta ayaa noqon doona mid waxtar leh si loo hubiyo feejignaanta maskaxda ee wanaagsan. sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, xitaa 2 saac oo jimicsi xooga oo biyo la'aan ah ayaa keeni kara hoos u dhac dhanka garaadka ah. daraasaduhu sidoo kale waxay muujinayaan in fuuqbaxu uu saameynta ugu badan ku yeeshay shaqooyinka maskaxda sida xalinta mashaakilaadka adag, isku dabarinta iyo feejignaantaba. marka ay maskaxdu u baahan tahay biyo ku filan si ay dhaqso ugu fiirto, diiraddana wax u saarto. biyaha badan ee la cabo waxay faa'iido u leeyihiin jirkaaga iyo maskaxdaada labadaba, taasi oo sahlaysa in ay si fiican u shaqeeyaan. 9. cabidda sigaarka. tani waa caadada ugu waxyeelada badan ee maskaxda mashquulisa. sigaarku kaliya ma keeno cudurrada sanbabada ama kuwa wadnaha, laakiin sidoo kale waxa uu saameyn xun ku leeyahay maskaxdaada. sigaar cabidda waxay dhaawacdaa xuubabka unugyada iyo awoodda neerfaha ee meelaha maskaxda qaarkood maamulo isu dheelitirka. sidoo kale waxay khafiifisaa cortex-ka, halkaasi oo ay dhacaan waxyaabaha sida luuqadda, xasuusta iyo aragtida aad wax ka haysato. waxa kale oo ay horseedi kartaa dhibaatooyinka sida waalida iyo dhimashada. sigaar cabista xad-dhaafka ahi waxay keentaa caabuqa neerfaha, kaasi oo sababi kara xanuunka loo yaqaano multiple sclerosis. 10. isticmaalka alkohosha. inkasta oo aanay dadka muslimiinta aad u isticmaalin waxyaabahan, haddana waxaa jira dadyow badan oo muslim ah oo isticmaala waxyaabaha daraagiska ama maandooriyaasha ah oo ay ka mid yihiin khamriga, xashiishadaha iyo dhammaan waxyaabaha kale ee la mid ah ee maanka dooriya. kuwaasina waxay dhaawac weyn u geystaan maskaxdaada iyagoo ku sababa xanuuno, kuwaasi oo hoos u dhiga ama yareeya awoodda maskaxdaada. 11. shaqaynta marka aad xanuunsan tahay. marar badan ayaynu samaynaa inaynu kaga dhuumanno shaqada ama aynu uga joogsanno inaan sheegano xanuun, balse marka aad si dhiba u xanuunsanayso haddii aad sii shaqayso, waxaa baal ah in ay shaqadaasi waxyeelayso waxtarka maskaxdaada. taasina waxay kugu kordhinaysaa walaaca iyo walbahaarka marka aynu xanuunsanayno ama marka uu jirku xanuunsanayo. jirka iyo maskaxduba
waxay shaqeeyaan saacado dheeraad ah si ay ula qabsadaan caabuqa. Shaqaynta adiga oo xanuunsanaya waxay kugu kordhinaysaa culayska, sidaasi darteed naso oo naftaada u roonow. Mana aha muhiim in aad shaqaysaa xilliyada aad ku xanuunsan tahay. 12 jimicsi la'aanta. Jimicsigu aad ayuu u saameeyaa maskaxda. Wuxuu kordhiyaa garaaca wadnaha, kaasi oo ku shuba oksijiin badan maskaxda. Jimicsigu wuxuu hoos u dhigaa heerarka walbahaarka ee jirka, waxaana uu kordhiyaa dhaqdhaqaaqa oo uu ka dhigo mid fudud. Haddii aadan jimicsi kugu filan samayn, waxaa hoos u dhacaya xirfadahaaga dhaqdhaqaaqa. Daraasadu waxay sheegeen in jimicsigu naga caawiyo in uu nagu soo daayo hormones, kuwaasoo ah hormoon farxadeed. Isku soo wada duuboo, jimicsigu wuxuu xoojiyaa wadnaha iyo sambabada, ma aha kaliya maskaxda. Haddii aad ka walwalsan tahay in ay wanaagsan tahay caafimaadka maskaxdaadu iyo tayada fikirkaagu, haddaba waxaad u baahan tahay in aad barato qaababka loo daryeelo maskaxda. Barnaamijkan intan bay ku joojinaa. Haddii aad ka heshay muuqaalkan iyo talooyinkanba, fadlan like si dad badan u gaaro, kuna soo biir asxaabteena haddii aadan ka mid ahayn. Nabadiin.